Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay xarunta madaxtooyada ugu dambeysay 22 Sebtembar sanadkii 2020 kadib hal sano iyo 7 bil. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha si weyn loogu soo dhaweeyay isaga oo ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay dadaalkii iyo dhabar adeegii uu muujiyay intii lagu guda jiray doorashada soo ilaatay 15 May ee 2022 doorashadaasi uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kaalin weyn ku lahaa doorashada qaadatay ku dhawaad 2 sano isaga oo ka hor istaagay dowladda uu hogaaminayay madaxweynaha xukunka ka sii degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo boob ay ku hayeen kuraasta taala Jubbaland. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gobolka Gedo geeyay ciidan ka amar qaata kuwaas oo la sheegay in ay ilaalinayaan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya balse maamulka Jubbaland ay beeniyeen arrinkaasi. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu soo rogay cunaqabateen salka ku haysay doorashada uu ku soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Villa Soomaaliyana ay ka biyadiiday natiijada uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Madoobe oo markale loo doortay inuu hogaamiyo maamulkaasi Jubbaland. doorashada la soo gabagabeeyay 15 May 2022 uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tibaaxaysa in ay daahfuri doonto dib u heshiisiin laga sameeyo ficladii uu sameeyay maamulka hadda talada ka sii degaya ee majaraha u hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.